والموقال كان يلد هذا الموقال كان waxa ugu jecel lahaa haweenka uurka leh waa okay haweenka uurka leh haddii canuga uu ka soo jeedo xataa gabadha waxaa ka shaqeynaa in la qalo sababta ku sheegaa qofka haddii la qalo qiimo gaar ah waa haddii si caadi gabadh intee noogu umusho ee naga tagtana $40 $30 marka ma isbixin karaa isbitaalka adla turkiga su'aasha ku weydiiya waa maya marka waxaa sameynaa qofka qaliina u dirnaa canuga hadduu soo jeedo xataa هلا قال هلا بوبسي هلا قرسي الله وهلا قال قفكاس صدح مالنا ماشي كويسنا جيفا قلنا هولا قلنا توتال مركا لعagta $1 afka u saaranta afsaxna $40 marka iyo $1 adii la tirgaaga meesha ka qaada lahayd waa fahmi kartaa hay ugu caabeen la kaamirada ka waay hadafka qof bukaana annaga ma aha hadafkiina macnaha sida warka ay ka dhadhaminayo macnaha qof dhali karo oo hadii cabaari la socodsiin dhali karo in la naafeeyo waxa laga fiirinaa lacagta ee ma laga fiirinaa qofka maxaa u dana dhaxdayna kaaga sheekana oo isbitaalkeena ka dhacday okay gabar faalnaysa maanta si caadi u dhali karta cidii waxa ku dhaxna gabadhan waa la qalaa waa taqaana familiga qalleen maya isbitaalka la aadayna uu abuuqeen dhakhtaradii waxa la dhahay gabadha si fiican u waabeen ilmaha waa jecel yihiin mogtahay hooyooyinka Soomaalida aad ilmahooda u jecel yihiin dhakhtaradii oo tagtay gabadhii waxay dhahday maqleeha familka warkooda ka bax canug dhaadhaana doqona inaad dhasho maarafta oo autism qaba hadduu rabo haddii kale infection ku dhalan lahaa canugan hadduu caadi u dhasho wala tabliiqina wala wahabiyay si fiican looga naxiyay gabadha markay ilmaha wajacashaa mogta gabadhii oo la dagaalay halka hooyadeedii aabbaheed daaso mii maqlaysiina waa in nacdeen halii qalo halii bobsi dhinacana laga soo galay cidii diidan qaleenka oo xoogaa wax fahamsan gabadhoodii mararka qaar ku taageerayeen waana ku taageereen baadooy waxa dhahan hana loo qalo gabadha ayadaana ka soo qalqaalisay waxaana ka shaqeysay dhakhtaradii ka shaqeysay saasaa lagu qalay 3 maalin joogtay 3 maalin waxa la dejiyay qolfi IB meeshii daawo badan lagu siiyay adiga $40 qaadan lahayn kun nadiif ah meesha iska sheekada marka weliga iyo Allah ha aaminin makaanig iyo dhakhtar qiyaanadan ay ku naaxeen ku barareen dhaqaatiirtayna Soomaaliyeed halkii in caawin lahaayeen waxaasna waxa u sabab ah dawlad la'aanta iyo dhaqaatiir tayeysan oo alla ka cabsi leh wadankeena ma joogaanba dhibkaan wala soo wada maraa wana noo yaalo waa dhib iska aali doon weligiisa liis غيري muuqaalka share dhaha haddii aan follow ku ahayn follow isoo dheh share na dheh nabadi